السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري يوتيوب كعالم تكنولوجي يبيشان كلنا فيسبوك عشان كمان تيجي عشان كون لكن مهم حبارسن عشان كنا فوق هذا الشيء لو يقانو كمبيوتر كويندوز كشرا إلا أبديت كريم أبديت اللي قصة أيو يكون رميا وحمهمد وين إن فرشة كوكوشرا دون صارن تين يهاي أم 8.2 يهاي لبدا ويندوز الشقين يبي كمية هدو يهاي inaad ku samayso computerkaaga update mar walba ku samayso ayaa aada u fiican si ay kugu soo degto maxay versionkii u dambeysay kugu soo dego oo la jaan qaadi kara software kasta la jaan qaadi kara hotfixkiisa wata si kula soo dego marka bal maanta waxaan arki doonaa qaabka loo update garaynayo ayaan arki doonaa oo muhiimad weyn xambaarsan qaabka loo update garaynayo waxaan tegaynaa searchkan waxaan ku qorayaa settings waa kan waan ku dhufanayaa hal marka saa ku dhufto haddii waad fahmi kartaaba haddii iminka ay waaninka calaamadaada aragto waxa ku taagan update baa ku taagan updatekaas wuxuu ku sheegay inuu dhamaaday laakiin uu baahay restart requirement uu baahay in la restart gareeyo imika waxaa ku dhufanaya meesha ku taalay update and security yaa ku dhufanaya dabeedna iminka halkaa iminka aniga kayga waa update gareysan yahay waa kan oo listan last version ba weeyaan waan update gareyay laakiin si uu amarka update u fulo maxaa laga baahay restart qofkan hore u update garay halkan waxay soo baxaysaa restart ay update dabeedna markaad update garayso waxaa qasaba in internetka uu ku xiriirsan markaad update garanayso waad ku xidhantay internetka waad update garanaysaa xogaa waqti uu qaadanayaa waad sugaysaa hadhow waxa laga baahan waxay restart waqtiiso dabeedna amarkaas fulaya muhiimad weyn bay leedahay in la update gareeyo muhiimad aad u ballaaran ayay leedahay casharkaa maanta kooban ee muhiimad weyn xambaarsan ayaan maanta idinla wadaagay waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.